qofka xaaskiisa marka uu u galmoonayo biyaha bannaanka ku daadiya ama xaaskiisa daawo siiya si ayan u dhalin ama irbad ku dhufta ma la mid baa qofka ilmaha sida caadiga ah u dila ama marka uu abuurmo kadib soo tuura masalada mar kalena waan ka hadalno waa ka jawaabnay taqriiban ilmuhu intuusan uur gelin in uurgelidda ama inuu uurka galo laga ilaaliyo haddii marka ayna ujeeddadu ahayn iyo waxa ruuxa ku xambaaraya risiqka carar iyo arsaaq xaggeen uga helaya laakiin ay jiraan asbaab kaloo kallifaysa wax dhiba male way bannaan tahay asalka lianno xadiidka jaabir bni cabdillaahi radia allahu tacaala canhuma waa kii ahaa kunna naczil waalqur'aanu yanzil yani waxaan samayn jirnay casliga isagoo qur-aanku degayo casligu waxa weeyaan waa ninku markuu reerkiisa u galmoodo ama addoontiisoo kale biyuhu soo dhowaadaan inuu biyaha bannaanka ku daadiyo xubinka intuu soo saaro uu bannaanka ku daadiyo taasaa casliga la yidhaahda si ayna islaantu uur u qaadin marka qur'aankoo degaya ayaannu samayn jirnay buu leeyahy saxaabigu hadday xaaraan tahayna qur-aankaan noo diidi lahaa xadiidka nebiguna sal alla alay wasalam wuxuu uhi maa calaykum anlaa tafcaluu inaydaan samaynin waxba idinka soo gaari maayaan wixii ilaahay qoray oo qadaray waa abuurmaya haddaad si kasta uga warwareegto marka asal ahaan waa iska bannaantahay waagaasi dee wasiilo kale ama qaab kale oo lagu samayn kara ma jirin oo biyaha bannaanka lagu daadiya aan ahayn laakiin hadda qaabo fara badan ayaa soo baxay oo muxuu ahaay ilmaha ama biyuhu inay gudaha ku daataan lagaga hortegi karo ama islaantu inay uur qaadaba lagaga hortegi karo marka asal ahaan way iska bannaan tahay khaasatan haddii asbaab keenaysa ay jirto oo maalan yani maamadii baa maalan ku xanuunsanaysa xaaskaa ku xanuunsanaysa carruurtan faraha badan maalan kala korintooda ayaa maalan lagu rafaadaya in la kala koriyo maalan asbaabo kalaa jiri karo ruuxa daafica ku bixin karaya laa ba's wax dhiba male laakiin haddayna wax sababa uusan jirin oo keenaya ama xaajo keenaysa aysan jirin markaasi karaaha ku jirta sida culimmada maalikiyada iyo qaar ka mida tilmaamayaan waxaana laga faa'iidaysanayaa nabigeenna la weydiiyey sal alla alay wasalam xadiidka fii saxiixi muslim oo judaama binti wahb gabadha la yidhahdo warinayso nebiga markii la weydiiyey sal alla alay wasalam wuxuu yidhi dalika alwa'du alkhafi waa xabaalnololin qarsoon buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam yacni ilmaha iyagoo nool bay aasi jireen jaahiliyadii islaamka ka hor marka tiyoo la qariyey waayo buu nebigu sal alla alay wasalam tiyoo xoogaa la yaro farsameeyey buu nebigu ku tilmaamay sal alla alay wasalam marka waxay tilmaamaysaa haddii aan xaajo keenaysa aynan jirin karaaha kama madhna maxaa yeelay asalku waxa weeyaan in carruurta la badiyo asal waa in taranku bato waay haddii xaaja keenaysa ay jirtana way bannaanta laba goorobana ma gaadhayso ilmo la soo riday la mid maaha ilmo nooloo la dilayna la mid maaha taa waa jariimo iyo dembi weyn ilmo uur galayoo la soo riday oo ama nafta markii la geliyey ama ka horba taa waa dembi weyn la mid maaha way ka duwan tahay macnaha wallahu aclam